ma is weydiisaa sababta dadka qaar marka ay qolka soo galaan indhaha oo dhan ugu soo wada jeestaan ma ahan hantidooda ama muuqaalkooda ee waa wax ka qoto dheer waana saameynta. Haddii aad dareemayso in codkaaga aan gaadhaynin meeshii aad rabtay ama aad rabto inaad bulshada dhexdeeda aad ku yeelato saameyn, ila joog ilaa iyo dhammaadka. Maanta waxaan furi doonaa 10 sir oo isbeddel weyn ku samayn doona habka dadka kale ku arkaan. Ma tahay qof diyaar u ah inuu noqdo magnet oo soo jiito dadka kale? Nambarka 1, dhisidda kalsoonida nafta. Saameyntu waxay ka bilaabataa adiga gudahaaga. Haddii aanan adiga isku kalsoonayn, dadka kale kuguma kalsoonaan karaan. Kalsoonida ma ahan inaad isqaado, balse waa inaad garanayso qiimahaaga iyo waxaad tahay. Tusaale, markaad fadhi ku jirto, hadalka yuusan kaa gariirin. Haddii aad doonayso inaad dhiibto fikrad, u dhiibo fikradaada si cad adiga oo indhaha u saaraya qofka kale. Qodobka 2, noqo dhegeyste wanaagsan. Dadka saameynta leh ma ahan kuwa ugu hadal badan ee waa kuwa ugu dhegeysiga wanaagsan. Markaad qofka dhegeysato, waxaad siinaysaa dareen ah inuu muhiim yahay. Taasina waxay dhisaysaa guur weyn oo xiriir ah. Tusaale, Nelson Mandela wuxuu ahaa qof mar kasta dhegeysta odayaasha iyo dadka kale inta uusan gaarin go'aan. Taasina waxay ka dhigtay hogaamiye la jecel yahay. Qodobka 3, daacadnimo iyo isku kalsoonaan. Ereygaaga iyo ficilkaaga waa inay is yeeshaan. Haddii ay dadku kugu bartaan beenta ama ballan furka, saameyntaada waxay ku baabi'i kartaa hal habeen oo qura. Tusaale, ganacsade caan ah had iyo jeer alaabtiisu ay tahay sidii uu u sheego, wuxuu kasbanayaa saameyn iyo macaamiil ka badan mid mar walba sameeya xayeysiin been abuur ah. Qodobka 4, barashada xirfadda hadalka. Qaabka aad wax u sheegayso ayaa ka muhiimsan waxaad sheegayso. Baro sida loo isticmaalo codka, dhaqdhaqaaqa jirka iyo sheekooyinka. Tusaale, isbarbardhig 2 qof, midna akhrinayo warqad, midna u sheegayo dareenkiisa si sheeko ah. Markasta waxaa guuleysa midka labaad. Qodobka 5, caawinta dadka kale. Saameynta dhabta ahi waxay timaadaa marka aad dadka kale wax u qabato adigoo aan ka sugaynin wax abaalgud ah. Noqo qof xalliya dhibaatooyinka bulshada ama garab istaagan dadka tabaalaysan. Qofka dhalinyarada ah oo xaafadda ka dhex muuqda oo markasta u taagan caawinta dadka waayeelka ah wuxuu si otomaatig u noqdaa qofka ugu saameynta badan xaafadda. Nambarka 6, noqo qof aqoon u saaxiib ah. Dadku waxay raacaan qof wax bartay. Isku day inaad ku takhasusto ama aad wax ka barato mowduuc gooni ah, waayo aqoontu waa awood. Haddii aad tahay qof aqoon badan u leh caafimaad ama farsamada gacanta, dadku waxay u imaan doonaan adiga waxayna ku weydiin doonaan talo. Taasni waa bilowga saameynta. Nambarka 7, muuji naxariis iyo dareen. Inaad dareento xanuunka ama dareenka qofka kale waxay kaa dhigaysaa qof lala xiriiri karo. Tusaale, maamulo u naxariisto shaqaalihiisa marka ay timaado dhibaato qoys, wuxuu helayaa shaqaale u shaqeeyo si hagar la'aan ah. Noqo qof la isku halayn karo oo taagan mar walba halkii loogu bartay. Haddii aad tahay qof soo dhiga nuxur wanaagsan baraha bulshada, waa inaad joogtaysaa si ay kugu xirnaadaan dadka kale. Qodobka 9, dhisidda xiriiro wanaagsan. Dadka aad taqaano waa hantidaada. Baro dad kala duwan, ka qaybgal munaasabadaha, dhis saaxiibtinimo dhab ah. Qofka yaqaana dadka kala duwan sida ganacsatada, dhalinyarada iyo dadka kale wuxuu fududeeyaa wax walba oo loo baahdo. Taasna waxay ka mid tahay saameynta bulshada dhexdeeda. Qodobka 10, noqo tusaale nool. Ha dhihin sidaas sameey ee dheh aan wada samayno. Dadka ma raacaan tilmaamahaaga ee waxay raacaan raadkaaga. Haddii aad rabto bulshada inay nadiif noqoto, marka hore adiga qaad qashinka. Ugu dambeyn, xasuuso hal wax: saameyntu ma ahan wax ku dhaco hal maalin ee waa miro aad gacantaada ku beerayso. Qof kastoo aad aragto maanta isaga oo saameyn leh wuxuu soo maray jidka ah inuu naftiisa dhiso oo dadka kale u adeego. Haddii aad rabto magacaaga in la xasuusto xitaa markii aad maqan tahay, ku sifay daacadnimo iyo caawinaad. Ha noqonin qof ku dhex nool bulshada ee noqo qof bulshada u noqdo iftiin si ay wax u arkaan. Haddii muuqaalkan wax yar ku soo kordhiyay garaadkaaga, fadlan like saar, saaxiibkaana la wadaag, waayo faafinta khayrka waa qayb ka mid ah saameynta aan ka hadlayno. Subscribe-na ha iloobin si aad u noqoto qofka ugu horeeya oo hela xigmadaha aan ku soo gudbino channel-keena.